xooghayaha warbaahinta xusbiga mucaaradka ee Ucid Yuusuf Kayse ayaa maanta ka hadlay cashuuro ay doonayso inay ku soo rogto wasaaradda warfaafintu TV-yada madaxa bannaan iyo sidoo kale wargeysyada kala duwan ee ka howlgala Somaliland ee laga leeyahay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba taasoo wasiirka maaliyadda ee Somaliland uu toddobaadkan gudihiisa keenay golaha wakiilada ee Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa saxaafadda lacagta lagu soo rogay ee la leeyahay milyan lacagta ha bixiyo waxaan aaminsanahay inay tahay caburin cusub waxaan aaminsanahay inay tahay in la doonayo inay soo haraan TV tiro yar iyo joornaal tiro yar iyo website tiro yar oo la doonayo in la yiraahdo hebelow ka saar warka wayna soo martay horaan u soo aragnay waxaan leenahay ma soconayso arintaas ma soconayso guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga oo shalay ka saaray miisaaniyadii ka saaray 5 wasaaradood oo wasaaraddaasi ku jirto aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golahana waxaan ka codsanaynaa inay miisaaniyadda tacriifada khaladka ah ee wasaaraddu ku soo dareen in laga saaro dalkani uma baahna maanta cashuur lagu kordhiyo dadka uma baahna culayskeenii kala ka badan waxaan aad iyo aad u cambaaraynayaa arrintan golaha wasiirada soo ansixiyay baan cambaaraynayaa horena waan u sheegay golaha wasiirada imika jooga inaanay ahayn kuwii rajo u abuur lahaa dadka shacbiga meel walbana waan ka sheegnay waxaana tayadooda iyo qiyamkooda tilmaamaya cashuuraha aan meel la loo dayin ee wasiir waliba maskaxdiisa waxa ku soo dhacay oo ku soo darayo aad iyo aad baan ugu cambaaraynaynaa waxaan leenahay khaladka waxa leh golaha wasiirada khaladka soo ansixiyay waxaan leenahay war ummadda waxa u soo gudbinaysaan hubiya golaha diine Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badda Cas Hargeysa.